Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaantiin waan wada salaamaya meel kasta dunida daafaheeda ka joogtaan. Marka koowaad waxaan idinka raali gelinayaa inaan barnaamijka idinkala raagi bariyaan, balse waxaan kula raagayin waa sababo jira awgood. Intaa marka laga yimaado, mid ka mid ah dadka ku xidhan kanaalkan ayaa waxay codsadeen in barnaamij laga soo diyaariyo habka looga hortagi karo wahsiga. Haddaba waxaynu soo diyaarinay 3 hab oo wahsiga looga hortagi karo ee la soco. haddaynu haddaba si toos ah ugu gudagalno barnaamijkeena maanta, waxa weeye horta waa 3 hab oo looga hortagi karo wahsiga aanad kaga hortagi karto. Habka koowaad waxa weeye hawsha markaa kuu taalo inaad isla markaa qabato oo aanad oran hadallada sida beri baan qabanaya, saada baan qabanaya, imika ma qabanayo, waayo cudurdaaradaas waa cudurdaarada ka dhiga naftu mid ay raaxaysato, mid aan hawl qabanaynin. Balse haddii aad nafta ku khasabto inay hawsha markaa u taalay ay qabato, waad ka hortagaysaa wahsigu. Si kastaba ha ahaadee waad shiidaysaa, waayo naftii waxaad ku carbisay inay hawshu qabato si kasta ha u adkaatee. Haddii aad markaa kiciso ay wixii qabato markay dhammayso, kadib waxay dareemi doontaa nafis wixii hayay inuu caajis iyo wahsi ahaa kana hortagtay. Marka waa hab ka mid ah hababka lagaga hortagi karo wahsiga, waana habka koowaad aan idiin sheegay. Habka labaad ee lagaga hortagi karo wahsiga waxa weeye inaad hawsha eegin adeegeeda, balse aad eegto midho dhalkeeda iyo wanaagga iyo raaxada ka dambaysa. Balse haddii aad hawsha eegto adeegeeda iyo siday u adag tahay, waxaa laga yaabaa inaanad markaa qaban oo ay niyaddii kaa jabto. Balse haddii aad eegto raaxada iyo midho dhalka ka dambeeya, waxa hubaal ah ama suurtagal ah hawshaas si kasta ha u adkaatee inaad hawshaa dhaafto. Tusaale ahaan, waxaad ka shaqaysaa shirkad, waxaad ka tahay shaqaale ka mid ah shaqaalayaasha ka shaqeeya shirkaddan. Ninkii maamulaha ahaa ayaa wuxuu yidhi, ninka isa soo xilqaaba ee hawsha noocaaye adag qabta waxaan ka dhigayaa mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda. Way adagtay hawshan in la qabto. Haddii aad tiraahdo waxba isxilqaami maayo oo aad iska fadhiisato, halkaa waxaad ku waayeysaa mas-uulnimo iyo raaxo. Habka saddexaad uguna dambeeya hababkan maanta idiin sheegayo waxa weeye inaad markastaad caajisto, markastaad kaslaannimo iyo wahsi aad dareento, aad akhrisato ducadan aadka u qurux badan. Maadaamaynu nahay dad muslimiin ah, maadaamaynu nahay dad Ilaahay iimaan siiyey, Ilaahay diintan wuxuu inoogu kabay inuu ina siiyo ducooyin aynu ku ducaysano xaalad kasta oo gaar ah markaynu ku jirno. Haddaba ducadani waxa weeye Allahumma innii acuudu bika min alkasli waalcajis, oo micnaheedu noqonaysa ducadan ilaah waxaan kaa magangelayaa caajisnimo iyo wahsi iyo waxyaabahaas la mid ah, sida inaad iska fadhiisato, inaad wahsi dareento, inaad caajisnimo dareento. waxyaabahaas oo dhan ayaa ducadan ilaahay kaga magangelaysaa. Ilaahay hubaal wuu kaa dulqaadayaa wahsigaas iyo caajiskaa ku hayay, waa haddii aad ducadan akhrisato aadka u qiimiga badan. Haddaba waxay ila tahay markaad fiidiyowgan si dhammaystiran u dhageysatay aadna u dhuuxday in albaabo badan oo kaa xidhna ay kuu furmeen, sida inaad wahsiga sidaad uga hortagi karto aanad garanaynin. Balse 3 hab ayaa ugu wanaagsan hababka looga hortagi karo wahsiga. Hababkuna way badan yihiin, balse 3dan ayaan kuu soo xulay. Maadaama inagu dad islaam ah nahay, badanaa dadku way ilaawaan inay ducadan akhristaan, balse aniga ahaan ducadan idinkamaan ilaawan oo waan idinku soo daray hababkii. Haddaba intaas ayaynu ku kala tegaynaa barnaamijkeennuna maanta. Intan ayuu ku idil yahay. Markasta aniga waa ii farxad inaan ku siiyo talooyin iyo waanooyin aad u qurux badan. Haddii aad naga daawanayso Facebook page, waxaan kaa codsanayaa inaad follow iyo like saarto si aynu kunka u gaarno 1000 asxaab ah. Haddii aad YouTube channel naga daawanaysana aad subscribe saarto si aynu u gaarno 1000 asxaab ah. Idinka ayaana gaarsiin karaa. barnaamijkuna waa Kaska Media. salaamullaahi calaykum. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر